jaaliyada dalka Canada ee Somaliland ayaa daaq laqadeed oo dhan $8,660 soo gaarsiisay guddida abaaraha gobolka Gabiley taas oo ay ugu tala galeen gurmadka dadka abaaruhu ku heleen deegaano hoos yimaada gobolkaasi deeqdan ayaa waxa goobjoog ka ahaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda Daawud Khayre maamulka gobolka Gabiley xubno kamid ah guddida abaaraha gobolka Gabiley iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa insha Allah halkan sugu nimid waxa uu daaran yahay in lagu soo wareejiyo guddida abaaraha gobolka Gabiley lacag ka timid walaalaha reer Somaliland ee reer Canada lacagtaas oo cadadkeedu dhan tahay 8,660 oo lagu soo hagaajiyay guddida abaaraha in lagu soo wareejiyo guddida iyadoo ay marti sharaf kale oo reer Canada ay joogaan kulay shirkeenu intaas buu galabta daaran insha Allah waxaan soo bixiyay reer Canada ee dadkooda soo xasuustay waxaan leenahay wayna soo gaadhay lacagtaasi sidaad ugu tala gasheen way u soconaysaa halkaad ugu tala gasheen bay ku baxaysaa intaas waa saas oo waxa ka hadlay qoladii ugu horeysay laakiin waxaan leeyahay dadka kale reer Gabiley meelaha kala jooga waxaan leeyahay abaar baasan baa dhacday wali wax ku dhintay oo dhibo noocaas oo dadii ma jiro laakiin duniyadii iyo dadku way liitaan waxaan leeyahay saa reer Canada oo kale ku dayda oo dadka kharash qoladan reer Canada soo direen oo abaaraha walaalahooda abaartu ku dhacday u damqaday u soo diray oo la gudbinaya halkan iyo qoladii guddida abaaraha oo beesha joogta waxa kaloo halkan fadhiya anu waxaan ka mid ahay qolo iskeed isku soo dirtay anigoo la taliyaha madaxweynaha ah iyo Hussein Xasan Gaboobo iyo Abshiroon wada socdo guddiyaanu annagu iskayay soo dirnay si aan u ogaano bal meesha waxa qeybto sida dadku isku diiwaan gelinayo nasiib darro ma muuqato in moogtahay sidii dadka jaanis loo siin lahayna la siiyey in abaabul loo sameeyay ma muuqato waxa weeye boqolkiiba 40 may diiwaan gelin haddaan approximation ka sameeyo taasina waxa weeye tu taala mas'uuliyiinta iyo guddida commission maanta halkan deeq lacageed u soo diray dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolkan Gabiley lacagtaas oo cadadkeedu dhan yahay $8,660 waxaana ina guddoonsi doono inoo sida walaalkeen Abshir Nuur oo ka tirsan jaaliyada reer Canada isagana sheekhay iyo guddida inoogu wareejin doona ilaahay waxaan ka baryaynaa Mukhtaar Nuux Ibraahim harwanaagnews.com gobolka Gabiley